TK horta inaad gardarro badanida aan runta ku sheegay arrimaheenu waxa uu dhahay qof kasta 1 milyan wuu gaari karaa balse qof kasta 1 milyan talent kuma gaari karo YouTuber Soomaaliyeed oo aad u fara badan ayaa 1 milyan wada gaaray adiga kaliya maxaa hiidka ku gaarsiiyay oo ninkan ku daba dhigay waa mid kale waxaan rabaa inaad fiidiyogan aad soo dhigtay aan hal iyo laba ka dhaho ila yara daawada saaxiibayaal idinku bal waa habeenkii King CK كستو مليون وقاري كرا لكن كيف كستو talent يقدر يلان كرا TK صاحب waxaad ahayd nin aan daawado inaan hal iyo laba waxaad soo dhigtay ka dhahana waajib bay ugu tahay markan oo kale waxaad soo qaadatay arrimaheena oo dhahaya qof kasta 1 milyan uu gaari karaa balse qof kasta talent kuma gaari karo kadibna fiidiyogaas waxaad ku xigsiisay markii aad Malaysia tagtay arrimaheena oo sacabka ku garaacaya adiguna ma taqaanay stage-ka aad saaran tahay waxaanad uga jeedaa aniga ayaa ka talent fiican sida aan ka akhristay fiidiyogiisa isku xigsiisay harta halka gobonimo ayaanu ka aragnaa uu arrimaheenu sameeyay oo nin aad magaaladiisa ugu tagtay ayuu ahaa inuu sacabka ku garaacana raganimada ay ka mid tahay oo aniga maanta hadda magaalada aan jooga aad ii timaadid sacabkan ku garaacaya wixii rag lagu yaqaan ku sameeynaya waa ku soo dhaweynaya waa ku martisooraya marka arrimaheena wuxuu baanu ka aragnay inuu gob ahaa markii aad Malaysia ugu tagtay ceeshna aad wada cunteen calooshiisuna ay fayoobeed uu sacabka ku garaacayay kuna faraxsanaa horumarka aad samaysay intaas baan anagu meesha ka dhaxaraynaa wax kale oo aad meesha ka badbaadaysid niyo ma jirto saaxiibkii CK waa mid kale CK berigi hore waxaad dhihi jirtay horumarkayga laga xun yahay berigi YouTube uu ku kala kacsanaayo dadka qofkii ka soo hadlay waxaad ku dhihi jirtay horumarkaygu ka xun yahay qofkaas haddana sheekadii waad bedeshay markii lagu fahmo hadda waxaad ku bedeshay familkayga ayaan Europe keensaday oo iyaga ayaa waqti la qaadanaya aad ba ku daawada aadna kelmadaas waad ugu celcelisaa alxamdulillah familkayga oo aan Europe keensaday ayaan waqti la qaadanaya halka adiga cunuga aad dhashay u gambinoos ka dhudhu ku celi mar kale anigu hadda nolosha aan ku jiro waxay tahay YouTube-ka inaan ka shaqeysto familkayga aan Europe keensaday alxamdulillah aan waqti la qaadanayo oo aan familkayga ogahay adiga walaalow xilligan la taagan yahay inaad familkaaga aad Europe keensato waan ku wada faraxsanahay ilaahay ha ku barakeeyo ee waqti la qaado dadkana gardarrada ka daa ninkan mid kale uu ka aamusay oo kuuba soo jawaabi maayee maxaa ku daba dhigay hore Soomaalidu ugu mahmaahi jirtay nin hadlaya nin aamusan baa dilay nin hadlaya nin aamusan baa dilay ninkaas wuu ka aamusay kula hadli maayo Soomaaliya dhan buu cadeeyay inaad ka gardaran tahay aanu ku qabsano nin aan taageeraad tahay oo aan daawade aan ku qabsada inaad ninka gardarrada kala tag maalin horena waxaan arkay adigoo la biilka dir markii la laa gabar buu ilma ka dhalay arrimaheena iyo xaaladii berigi dhawtay jiray ninkii ugu horeeyay ka soo hadlaadahay ninka wad ku digatay waxa aad tiri biilka dir kuumu soo jawaabin maantana adiga kaamu hadleen ilaa hadda ninka adiga ka laalaada nin hadlayna nin aamusan baa dilay baa la dhahay marka ninku waa ka aamusay sharaftu ka raacay raganimadu ka raacay adiguna qofka waa loo aamusaa ciil baa qofka lagu dilaa haday waxa uu ka tahay inaad shaqaysanayso YouTube-ka rabtiin oo ku kala kacaan haday iska kala kacsan inaad araba TikTok tan ku kala kacsanaya hadda taasi waa jirtaa in social media la isku kala kacsado oo ma taqaanay la isqabsado laakiin inaa qofka san dhan u daba gashido san dhan aad u gashid teenaadar ilama saxnaani gobanimaduna kuma jirto ninku soo dhaweeyo magaaladiisa ku geeyo iyo sacab ku garaacayna wax ceeb looga dhiga ma ahan wallahi billah raganimada iyo sharafta ka raaciyo gobanimada nin gobaad heedkiin CK aadna waa ku taageera waa ku salaamaya xumaariga ma ahan horumarkaagana kama xumi anigu assalaamu calaykum